Coding ama programming waxaa macquul ah inaad horey u maqashay haddii aad ku jirtid bay'ada technology. Waa maxay coding ama programming? Sidee ku noqon kartaa programmer? Maxaad u baahan tahay si aad u noqotid programmer? Waxaan kusoo koobi doonaa 5 qodob. Magacaygu waa Maxamed Farxaan. Kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. marka ugu horeyso waa maxay programming waa adeegsiga luuqado si aad computerka aad ugu hagtid si uu u sameeyo shaqo. Computerkii ayaad hagaysaa ama aad tilmaamaysaa si uu kuugu sameeyo shaqo adigoo adeegsanayo luuqado loogu talagalay in wax lagu programmeeyo. Sidoo kale coding iyo programming labadooda waa isku mid. Waxaa jiro programming languages aad baran kartid si aad u noqotid programmer. Waa maxay programming languageska? Waa luuqado loo adeegsado in wax lagu programmeeyo kuwaasoo kuu sahlaya inaad computerka aad tilmaantid ama tilmaan aad siisid oo aad wax ku programmisid si uu shaqo kuugu sameeyo si automatic ah. Programming languageska aad u baahan tahay inaad baratid si aad u noqotid programmer kuwooda ugu waaweyn waxaan kusoo koobayaa 5 xabo oo ugu waaweyn. Midda ugu horeysa waxaa la yiraahdaa Java. Waxay ka mid tahay kuwa ugu caansan programming languageska. Sidaas darteed Java waad baran kartaa si aad u noqotid programmer. Waxaana ku sameyn kartaa applicationada iyo wixii la mid ah. Sidoo kale waxaa jirto SQL oo ayadana badanaa la adeegsado oo ah query language loo adeegsado in lagu dhiso database-yada. SQL waxaa laga soo gaabiyay structured query language. sidoo kale midda kale waxaa la yiraahdaa JavaScript ayadana waa mid kale oo caan ah oo loo adeegsado in lagu dhiso functionality-ga website-yada. Sidaas darteed JavaScript ayadana aad ay muhiim u tahay in aad baratid haddii aad rabtid inaad programmer aad noqotid. Waliba dhanka web development-ga ama dhisidda website-yada. Midda kale waa C++. ayadana waa luuqad lagu dhiso application-nada oo loo adeegsado in wax lagu dhiso. midka kale ayadana waxaa la yiraahdaa Python. ayadana waa mid aad u weyn oo ah programming language caan ah dad badan ay isticmaalaan. Sidaas darteed maxaad u baahan tahay marka sideed ku noqon kartaa programmer ama qof ku shaqeeya cilmiga programmingka? Qodobka ugu horeeya waa inaad marka hore go'aansataa meesha aad rabtid inaad ka shaqeysid ama industry-ga aad rabtid inaad u shaqeysid. Waa inaad marka hore aad go'aansataa sababtoo ah programmingka waxaa loo adeegsadaa meelo kala duwan sida ganacsiga, meelaha caafimaadka ama healthcare-ka, sidoo kale financial service-ka sida bangiyada waa laga isticmaalaa programmingka. sidoo kale cyber security-ga waliba dhanka adeega bulshada asagana waa la adeegsadaa. sidoo kale dhanka artificial intelligence-ga asagana programming waa loo isticmaalaa. marka waxaad u baahan tahay intaan dhan oo aan soo sheegay inaad ka go'aansatid meesha aad rabtid inaad ka shaqeysid si ay kuugu fududaato markaas wixii aad rabtid inaad dooratid, luuqadihii aad rabtid inaad baratid, meeshii aad jecleedna aad uga shaqeysid. saas darteed midka labaad waa inaad marka labaad aad meel ku qorataa luuqadaha aad u baahan tahay. markii aad go'aansatid meesha aad rabtid inaad ka shaqeysid, midda xigto waa inaad go'aansataa luuqadihii aad rabtid inaad baratid. sababtoo ah luuqad walba programming ma baran kartid. waxaad u baahan tahay marka luuqadihii aad ku shaqeyn lahayd oo kaliya inaad baratid si ay kuugu fududaato shaqadaada. marka ugu horeysa haddii aad jeceshahay inaad ka shaqeysid dhanka dhisidda website-da ama web development-ga, tusaale ahaan haddii aad rabtid inaad noqotid web developer, waxaad baran kartaa maadooyinka kale ah HTML, CSS, JavaScript. waa saddexda ugu caansan oo lagu dhiso website-yada. HTML waxaa laga soo gaabiyay Hypertext Markup Language. CSS waxaa laga soo gaabiyay Cascading Style Sheet. JavaScript-na sidoo kale waxaa loo adeegsadaa ayadana in lagu dhiso functionality-ga website-ka. CSS waxaa loo adeegsadaa in lagu qurxiyo website-ka. HTML-na waxaa loo adeegsadaa in lagu dhiso website-ka laftirkiisa qaab dhismeedka website-ka aad ku sameynaysaa HTML-ka. sidaas darteed waxaa jira kuwo kale oo soo raaca oo ah tusaale ahaan framework-yo sida mid la yiraahdo Bootstrap. waa framework free ah oo qof walba isticmaali karo, waxayna ka caawinaysaa qofka programmer-ka ah inuu dhiso responsive website ama application. sidoo kale waxaa jirto ayadana Node.js ama Express.js. ayadana sidoo kale waa open source oo qof walba isticmaali karo. waxayna ka caawinaysaa qofka programmer-ka inuu dhiso application-ka uu ka dhiso dhanka server side-ka ama server side applications asagoo adeegsanaya JavaScript. sidaas darteed haddaad rabtid inaad baratid web development-ga laba qaab ayuu u kala baxaa. ama waxaad noqon kartaa front end developer ama waxaad noqon kartaa back end developer. front end developer waa wax qofka uu arkayo markuu website-ka uu galo. marka adiga aragtida koowaad website-ka la arkayay ama qofkii isticmaalaha wixii uu arkayo u soo baxayay ayaad dhisaysaa. sidoo kale haddii aad dhistid waxa daaha gadaashiisa ka socdo ama shaqada server-ka uu qaban lahaa, haddii server-ka aad programmisid shaqada server-ka uu qabanayo cid arki karta ma lahan. marka shaqadaas haddii aad qabatid waxaa lagu yiraahdaa back end developer. marka front end developer, back end developer labadooda la isku daray haddaad rabtid inaad noqotidna waxaa noqonaysaa full stack developer oo labadiiba waa taqaanaa. horeyna waad ka dhisi kartaa website-ka, gadaalna waad ka dhisi kartaa. magacaaguna wuxuu noqonayaa markaas full stack developer. qodobka saddexaad ee u baahan tahay si aad u noqotid programmer waa inaad barashadii aad samaysaa oo wix inaad barataa. kow waxaad ka baran kartaa college ayaad ka baran kartaa. sidoo kale waxaad ka baran kartaa bootcamp meelaha la yiraahdo oo meelaha la isku training gareeyo maadadii aad rabtay programmingka. haddaad tusaale ahaan noqoto programmer kaliya wixii programmingka ayaa lagu barayaa. sidoo
kale si shakhsi ana waad u baran kartaa oo adiga waad isbari kartaa online ka ayaadna ka baran kartaa. midka afraad waa inaad samaysaa adiga projectyaal aad leedahay. markii aad cilmiga aad baratid waxaa u baahan tahay inaad wixii aad samaysid project adiga aad leedahay inaad la imaadid. tusaale ahaan haddii aad baranaysay sida loo sameeyo website-yada waxaa u baahan tahay inaad samayso website adiga aad leedahay oo aad ku barbaratid si cilmigaaga uu kugu kordho oo wax badan uga faa'iido. sidoo kale haddii aad tahay application developer ama app developer haddaad tahay oo applicationada aad samaysid sidoo kale ayadan waxaa u baahan tahay project application la sameynayo inaad samaysid oo aad cilmigaadii aad kor u qaadid si aad wax badan u fahantid. saas darteed waa inaad la imaadaa ama aad dhistaa projectyaal adiga aad leedahay. midka shanaad asagana waxaa weeye in wixii aad baratay aad shaqo ku raadisaa. markii aqoon kugu filan aad yeelatid oo aad dhistid projectyaal adiga aad leedahay oo aad si fiican usoo training garaysid oo si fiican usoo practice garaysid dabcan wax walbo waxaa ku baran kartaa inaad practice garaysid. saas darteed waa in markii aad soo baratay waxaan oo aad soo practice garaysay kadibna aad shaqo ku raadisaa si aad u intifacsatid oo wax uga faa'iidid khibradna aad u yeelatid. muuqaalka intaas ayuu ku egyahay. waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. haddii aad soo gaartay halkan muuqaalka haddii aad ka heshay like saar, asxaabtaada danaysa arrimahana la sii wadaag. wixii fikir iyo fariin aad noo heshidna commentiga hoose noogu reeb. aad baa u mahadsantahay. intaan ku kulmayna muuqaalkan muuqaalka xiga waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.